Assalaamu calaykum akhyaarta. Waxaanu ka hadlaynaa waa maxay quruxda qofka. Run ahaantii markaad maqashid waa maxay quruxda qofka, waxaa kugu soo dhacaysa muuqaal wanaagsan iyo midabo nooca loo jecel yahay. Laakiin sidaas maaha. Waxaa jira quruxda dhabta ah ee bini'aadanka oo aadan ogeyn. Haddii quruxdan aadan lahayn, run ahaantii ma noqonaysid qof ay dadkoo dhan ay ka helaan ama soo jiita. Quruxdu maaha midabka iyo muuqaalka qofka. Muuqaalka qofku waa intaad aragtid oo indhahaagu ay arkaan. Laakiin markaad si qoto dheer aad u geshid, quruxdaasi way isbedeli doontaa. Haddaba ogow quruxda qofka in aan weligeed aan isbedelaynin. Lambarka koowaad, qofka ka faa'iideysta waqtigiisa. Haddii aad ka faa'iideysato waqtigaaga, ma jirto qurux kaa dhiman. Sidoo kale, waxaa jira waxyaabo qofka qurux u yeela. Waxaana ka mid ah qofku inuu garto dantiisa oo kaga faa'iideysto waqtigiisa. Haddii waqtigaaga aad ka faa'iideysatid, waxaad u muuqanaysaa qof qurxoon oo bulshadoo dhan ay ixtiraamto oo dadkoo dhanna ay xushmeeyaan. Haddii aad rabtid inaad mustaqbalkaaga dambe aad noqotid qof qurxoon oo dadkoo dhanna ay xushmeeyaan, waqtigaaga ka faa'iideyso oo weliba siday tahay uga faa'iideyso. Marnaba waqtigaaga ha khasaarin haddii aad rabtid inaad qurxoonaatid. Lambarka labaad, cabsida Rabbi joogtee oo mar walba cibaadada Rabbi subxaanahu wa tacaala la imow. Haddii aad rabtid inaad noqotid qof qurxoon, mar walba Rabbiga ku xirnow oo noqo qof Rabbi subxaanahu wa tacaala waajibaadkiisa guta oo ka soo baxa. Noqo qof Ilaahay jecel yahay. Noqo qof Rabbi subxaanahu wa tacaala malaa'igtiisu ay jeceshahay. Haddii intaa aad samaysid, ma jirto qurux kuu dhiman inaad noqotid qof qurxoon mustaqbalkiisa dambe. Lambarka saddexaad, dadka xushmee. Haddii aad dadka xushmayso oo dadka si fiican aad ula dhaqantid oo aad noqotid qof badanaa dadka ixtiraama oo garanaya sida dadka loola macaamilo, waxaad noqonaysaa qof qurxoon oo ay dadkuna ka helaan oo dadkana soo jiita. Waxaad noqonaysaa qof ay dadku aragtidiisa ay ku farxaan. Laakiin si walba oo muuqaalka u qurxoon yahay, haddii aadan lahayn wax xushmad ah oo dadka aadan la macaamili karin, waxaad tahay qof aan qurxoonayn. Marka haddii aad rabtid inaad qurux badnaatid oo aad noqotid qof dadka markay arkaan soo jiidanaya oo qof walba uu jeclaysanayo inuu la saaxiibo ama uu la heshiiyo ama la dhilkareeyo, ku dadaal inaad dadka xushmayso. Lambarka afraad, qof hadaf leh. Haddii aad hadaf leedahay oo aad tahay qof qorshe kale nolosha, ma jirto qurux kaa dhiman. Waxaad tahay qof qurxoon. Mar walba ku dadaal inaad noqotid qof garanaya macnaha nolosha. Haddii aadan wax macno ah ama wax qorshe ah aadan nolosha u samaynin, ogow waxaa kugu dambayn doonto foolxumo aad u weyn. Waxaad noqon doontaa qofka dunida ugu foosha xun. La soco haddaba, waan kuu sheegayaa mar labaad. La soco inaad noqotid qof nolosha qorshe kale oo mar walba qorshe ku socda oo nolosha hadaf kale oo tigsanaya wax inuu mustaqbalka inuu soo kordhiyo. Qasab maaha inaad meesha ugu sarreysid inaad gaartid, laakiin waa inaad wax inaad soo keentaa ama wax inaad noloshaada ku soo kordhisaa. Ugu yaraan noloshaada waa inaad maareysaa oo wax fiican aad ku maareysaa. Haddii inta aadan la imaan, ogow inaad noqon doontid qof foolxun. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Waxaan filayaa inaad wax badan ka fahantay muuqaalkan iyo quruxda dhabta ah ee kaa qarsoon. Haddii quruxdan ay kaa dhiman tahay, ogow waxaad tahay qof foolxun. Haddaad nagu cusub tahay, subscribe noo saar. Mahadsanid.